kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa rajo qaran TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay geeyiga Soomaalida iyo daafaha caalamka qodobada aad ku daawan doontaan warka rajo qaran TV waxa ka mid noqon doona taliyaha ciidanka gaarka madaxweynaha Soomaaliya oo villa Soomaaliya lagu dhaawacay magaalada Muqdisho oo laga daafuray shir looga hadlayo ka hortagga musuqmaasuqa muwaadin Soomaaliyeed oo xaaskiisa ku dilay gudaha dalka Mareykanka beesha caalamka oo madaxda dawladda ugu baaqday in dib u habeyn ay ku sameeyaan ciidamada xoogga dalka xarakada al-shabaab oo gobolka Bay ku toogtay 5 ruux oo ay ku tuhmayeen inay yihiin sirdoon u shaqeeya reer galbeedka wasiir ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre oo gaaray magaalada Garowe khasaraha ka dhashay qarxii Muqdisho ka dhacay wararka dibadda ee aad ku daawan doontaan warka rajo qaran waxa ka mid noqon doona Kurdiyiinta oo doonaya in la maxkamadeeyo maxaabiista Daesh intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door corona warka rajo qaran TV haatan u diyaar garooba isagii oo fidsan markale kulanti wacan wanaagsan aqyari aynu ku bilownay taliyada ciidamada gaarka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo lagu dhaawacay gudaha villa Soomaaliya askari ka tirsan ciidanka ilaalada gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya ayaa taliyihiisa waxa uu ku dhaawacay afaafka hore ee xarunta madaxtooyada halkaas oo ilaalo ay ka hayeen ciidanka sida qaaska u ilaaliya madaxweynaha Cabdifataax Dabagaale oo ahaa taliyaha orinta ciidanka ilaalada gaarka ee madaxweynaha Farmaajo ayaa dhaawac soo gaaray kadib markii muran uu soo kala dhexgalay isaga iyo askarigiisa taasi oo sababtay inuu rasaas ku furo askariga taliyaha wararka ay helayso rajo qaran TV magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in uu murankan yimid kadib markii askariga taliyaha uu ku eedeeyay inuu lunsaday lacag uu lahaa askariga ayeeshee muranka uu sii dheeraaday ayna sababtay in la dhaawaco taliyaha Cabdifataax Dabagaale dhaawaca taliyaha ayaa loo qaaday mid ka mid ah goobaha caafimaadka ee ku yaala gudaha Muqdisho si halkaasi loogu dabiibo xaaladiisa caafimaad waxaana durba goobta ka baxsaday askarigii ka dambeeyay falkaasi dhinaca kalena magaalada Muqdisho ayaa maanta laga daafuray shir looga hadlayo ka hortagga musuqmaasuqa kulankan dood wadaaga ah ee dhibaatooyinka musuqmaasuqa iyo sida loo horumarin karo howlaha dawladda oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay ka qayb galayaan qaar ka mid ah hay'adaha dawladda iyo bulshada rayidka ayaa waxa furay wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Xaaji waxa uu socon doonaa muddo 2 maalmood oo ay ka qayb galayaashu ka doodi doonaan musuqa iyo sidii looga ciribtiri lahaa dalka xogayaha joogtada ee wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Ismaaciil Jumcaale Calisow oo ka hadlay furitaanka dood wadaagan ayaa sharaxay muhiimadda loo qabtay kulankan iyo waxyaabaha lagaga hadli doono 2 maalin ee soo aadan wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo si rasmi ah u furay shirka ayaa tibaaxay in muhiimadda laga leeyahay ay tahay in Soomaaliya waqti dheer kaalmo hooseeya kaga jirtay musuqa iyo wax isdawmarinta hadda waji ka duwan kaas loo horseedo waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad uga soo qayb gasheen shirkan muhiimadda loo qabtay waa inaan helno hanaan wanaagsan oo looga hortagayo musuqmaasuqa waxaana ku casuunay wasaarada dhowra sida wasaaradda maaliyadda xafiiska xisaabiyaha guud xafiiska antidhowrka guud waxaan idinku bogaadinayaa inaad soo saartaan dood wax ku ool ah muddada 2 maalin ee shirku uu socon doona ayuu yiri wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya geesta kalena muwaadin Soomaaliyeed oo ku nool dalka Mareykanka ayaa isagu dilay xaaskiisa dalka Mareykanka nin Soomaaliya ayaa lagu xiray Kentucky gobolka Arkansas kadib markii uu dilay xaaskiisa sida lagu shaaciyay wargeyska Wavy booliiska ayaa sheegay in Maxamuud Cabduqaadir oo ah 22 jir ay qabteen maalintii Sabtida ahayd kadib markii ay su'aalo weydiiyeen waxa uu Cabduqaadir ku jawaabay in xaaskiisa laga yaabo inay tahay meed ayna taalo gurigooda booliiska Henderson ayaa tagay guriga qoyskan ay deganaayeen oo ku yaala magaalada Kentucky oo waxa ayna heleen meedka xaaskiisa oo ku jira qaanad gudaheeda Cabduqaadir ayaa lagu riday xukun kadib markii lagu helay cadeymo ku saabsan inuu gabadha soo gaarsiiyay dhaawacyo iyagu sababay inay u geeriyooto wali waxaad daawanaysaan warka rajo qaran TV war qoraal oo si wada jir ay u soo saareen jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa midowga Yurub midowga Afrika Britain Mareykanka ayaa lagu sheegay inay ku taageerayaan qorshaha uu soo bandhigay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo ku aadan sugidda nabadgelyada Soomaaliya waxaan bogaadinaynaa dadaalka dawladda Soomaaliya ay ugu jirto sidii loo xoojin lahaa horumarka laga sameeyo dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda dalka
waxaan diyaar u nahay inaanu taageerno dadaaladaasi waxaana indhaha ku haynaa shirka banka adduunka iyo IMF-ta ee ka dhici doona bisha Abriil ee soo aadan magaalada Washington iyo sidii AMISOM loogala wareegi lahaa mas'uuliyadda amniga guud ee dalka. Taasina waa ahmiyadda aan si weyn ugu taageerayno dowladda Soomaaliya ayaa lagu yeeray qoraalka ay soo saareen beesha caalamka. sidoo kale beesha caalamka ayaa ka digtay in xilligan la musuqmaasuqo dhaqaalaha loogu talagalay ciidamada xoogga dalka si ay u noqdaan kuwo u diyaarsan sugidda ammaanka. waxay sidoo kale sheegeen in haddii ay dhaqan galaan qodobadan ay xuseen ay horseedi karaan deganaansho iyo barwaaqo ka dhacda Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka. waxaa sidoo kale ay ku booriyeen hogaamiyaasha Soomaaliya in laga wada qayb galo hanaankii looga maray dhalin lahaa horumarka iyo nabadda dalka. hadalkan ayaa ka dambeeyay kadib kulan uu dhawaan ra'iisul wasaare Khayre kula yeeshay wakiilada beesha caalamka iyo AMISOM iyagoo ka wada hadlay qorshayaasha horumarineed oo ay wado dowladda Soomaaliya iyo sidii loo taageeri lahaa. warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan qarax nooca gawaarida lagu dhajiyo kaasi oo ka dhacay inta u dhaxaysa isgoyska Taleex iyo kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. gaariga qarxay ayaa waxa ka dhashay dabkaas oo saameyn ku yeeshay gawaari kale oo yaalay goobta uu qaraxa ka dhacay. waxaana warar soo baxaya ay tibaaxayaan in qaraxa uu ku dhintay wiil dhalinyaro kuna dhaawacmay awihii oo gaariga la saarnaa. sidoo kale dad saarnaa gaari hoomay ah wadada maraya ayaa waxyeelo ay ka soo gaartay qaraxaasi. ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya ayaa goobta gaaray kadib qaraxa kuwaasi oo xiray wadada isla markaana u diiday dadka iyo gaadiidka inta badan ay maraan walow haatan dib loo furay wadadaasi. wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Jamaal Maxamed Xasan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Garowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland. waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland. ujeedada socdaalka wafdiga wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka uu hogaaminayo ayaa ah sidii wadatashi ku aadan wareegga koowaad ee qorshaha horumarinta qaranka ee sagaalaad loola yeelan lahaa hay-adaha dowlad goboleedka Puntland, ururada bulshada rayidka, ganacsatada iyo laanta sharci dejinta. waxaa lagu wadaa in maalinta baritaan magaalada Garowe laga daafuro wadatashiga qorshaha horumarinta qaranka ee sagaalaad kaasi oo saldhig u ah geedi u socodka deen cafinta Soomaaliya iyo yareynta saboolnimada si dalkeenu u gaaro horumar baxsan. geesta kalena xarakada Al-Shabaab ayaa waxaa fagaaro ku yaala deegaanka Yaaq Barawe gobolka Bay ay ku toogteen 5 nin oo ay sheegeen inay sirdoon u ahaayeen dowladaha reer galbeedka. goobta fagaaraha ayaa waxaa ku sugnaa boqolaal ka mid ah shacabka deegaanka Yaaq Barawe waxaana dadka la toogtay ay magacyadooda Al-Shabaab ku kala sheegeen Aadan Muudey Maxamed, Ayuub Xasan Maxamed, Maxamed Isaaq Xasan, Xamuud Cabdi Isxaaq iyo Cabdi Maxamed Isxaaq. xubno ka tirsan maxkamadda Al-Shabaab ee gobolka Bay oo goobta ku sugnaa ayaa waxa ay tibaaxeen in ragga dilka lagu fuliyay ay qirteen dambiyada ay galeen. si kastaba haatee xarakada Al-Shabaab ayaa deegaanada ay ka maamulaan gobolada dalka waxay ka fuliyaan xukunno isugu jira dilal, gacan goys iyo xukunno kale. diyaarado dagaal ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxa ay duqeymo ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. deegaanada ay duqeynta ka dhacday ayaa waxaa ka mid ah Luuq, Jeelow iyo Oranta oo dhammaantood hoostaga magaalada Beledweyne. weli lama oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay duqeyntan ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. maamulka gobolka Hiiraan ayaan weli wax wara ka soo saarin duqeynta ka dhacday gobolkaasi. dhawaan ayay ahayd markii diyaarado dagaal sidan oo kale ay duqeymo ka fuliyeen deegaanka Luuq, Jeelow ee gobolka Hiiraan. halkaad warkaasi ka daawanaysaan waa Rajo Qaran TV. kurdiyiinta ayaa doonaya in la maxkamadeeyo maxaabiista Daesh. maamulka dagaalamayaasha kurdida ee waqooyiga Syria ayaa ku baaqay in la abuuro maxkamad caalami ah oo lagu xukumo kumanaan xubnood looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Islaamiga ah. kaal lagu magacaabo Cabdulkariim Omar ayaa sheegay inay la tacaalayaan in kumanaan ay xaqiijiyaan kuwaas oo lagu qabtay magaalada ugu dambeysay ee kooxaha IS gacanta ay ku hayaan. jabhadda Kurdishka Syria ayaa qabsaday magaaladan asbuuc ka hor. ku dhawaad 1,000 dagaalyahano ajnabi ayaa lagu hayaa xeryaha ay xukuumadda kurdiyiinta Suuriya maamulayaan. madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump ayaa ku farxay qabsashada magaalada Baghuz inkastoo uu sheegay inuu Mareykanka weli shaki ka qabo
khatarta kooxdan ay yeelan karto. Kooxahan gacanta lagu hayo waxa uu badan dagaalyahanno ka yimid wadamada galbeedka si ay uga barbar dagaalamaan kooxda IS. guud ahaan warkii aad ka daawanayseen Rajo Qaran TV aqyaaray caawa waanaga inta. si aad u hesho hadba wixii warar ay ku soo kordha geyga Soomaalida iyo daafaha caalamka, subscribe saaro Rajo Qaran TV.